waayahay gabadh ayaa markii ugu horreysay mataqaanaa waxay sheegtay in maxamed cabdulaahi farmaajo uu kufsaday iyada oo yar waa ninka hadda madaxweynaha soomaaliya ka ah isku xaafad bay ahaayeen gabar yarna way ahayd marka ayadaa noo bilaabaysa haye sheekadii farmaajo noo bilow sidaad igu sheekeynaysay intaana mataqaanaa waraysi kaa qaadi ka hor ha waa ku jeedaa waayeel ma ahay gabar yaraata ano baby wasanika haye xagee ka waxaan gadanaa xool wadaag haye aabbaana sacuudi uu ka shaqaysanayay haye anna waa iska fududaa fudud jiro ha oo gabar yar iska fudud baan ahaa qof kasta iska raaci jiray haye wiilasha mareexaanka xaafadda degana aan diiday ha ayaa waxay mareexaan bay dhacbatay hadda quruxda baa la gaboobeyey haye daan miijada waa ku jeedaa ha quruxda anoo yar ka afartaman jire adoo 40 jiraad ahayd marka xaguu farmaajo kaa hela marka quruxda anoo afartan jira maxaa u malaynaysa waa yelad gabar yara ahayde marka xaguu farmaajo kaa hela marka isaga markaas dasirkiisa ma weynin wuu yaraa haye laakiin anuu intuu rabay ma weynaa haye wuxuu iga helay wiil la dhaho burhaan oo hadda dhintay iika hadda nool oo ilmaadare ahaayeen habar wadaag may ahaan ma aqaane allamaga dhabis haye allamaga dhabisna aabiisna magaca reer kooshin buu wax ku qaatay oday jaahil buska ahaa waaya derisna waa aheen haye shukri maxamed afrax ma taqaana shukri maxaa afraxa kulli derisa aheen haye degmada degantihin marka reer faqiira ka dhalatay carshaan isaga nooleed kabacdi nin mareexaana jeclaaday xaafadaha loo qaatay xaafadda ilmaha lagu dilay iyada darteeda marka degmada degan ama howlwadaaga deganideen howlwadaagaan deganin ha iskool musagala agtiis haye marka asaga marka adi marka ku qabsanaayo oo kursi kula damcaya xagee ku watay waxaa mataqaana nin la odhan maxamed cabdilaahi oo hadda mandhooliya ma dhintay ma aqaano iyo allamagan iyo maraxaan baa ay tishteen ciyaal xaafadda haye ana curubaa iska tegi jira anoo ilmo yaraa mogta xitaa ciyaalka xaafadda weerkasta ka geli jira ogtahayno ha habeen aan raacay asxaab xaafadda ay galo nool oo gabadh oo ishag warsangeli oo hadda ku nool iskudan ha wiila dhulbahantaan wada familkay waxay ahayd xaflad baa jirtay markaas waaya hadda waa lasoo qabtee maxaa ka taqaana camalno walin maxamed weyne sar baa ku dhintay dhuuqa haye noo sheeg marka say wax u dhici arta waxaad nooga bilowdaa kow saa u socotay markii lagu qabo farmaajo iyo rag gala socda ay ku wateen meeshay ku geesteen sharax bal dadka sawir u bixi siday wax u dhaceen horta wala dhulbahantaa la socday waaya ninka oo bahar sabada oo magac buu leeyahay wiilkiisa inuu dhintay inuu leeyahay ma aqaano garaad cali garaad jaamac u ahay ilma fuaad garaad jaamac garaad cali u ahay garaad cali garaad jaamac u ahaa ninkii bahar ilma fuaadna naanayax badbay ahay kaas baa ku noolaayeen kaas bulaar haye xasan fuaad haye dhulbahantaan ba la socday dhulbahanta lafirkooda intii la yidhi soo dejiyeen aan car oo amarweyn ku dhuuntay ayaa qoorta ay soo qabteen haye baabuur weyn oo madaxtooyada ka socdaan ay u kaxaystay keligay haye aniga marka waxaa istaagay ilaahay awowgay daarad ismaaciilow lacanugii baaskeele waa qabiilka waa la isku royay iyadoo yarree haye kabacdi laba dhir baa burur baa laga siiyey naashurwaalka sii yaa kugu dhifta dharbaaxyada dharbaaxa caadi ah ilaahay awlaadda iyo qaado caawa haddii aan dhinto haddaa caawa dhinto ilaahay horta everyone die samogid waa sax waay farmaajo intuu iqaaweeyey ayuu caddana uu bahad la soo baxay meyd ah ilaahay baa meyd uga dhigay saddexdoo nin haye marka yaa dharbaaxyada kugu dhifan horta intaas aysa galmada aysa imaanin horta yaa kugu dhifan dharbaaxada farmaajo dharbaaxii kuu geliye wash iyo wash waa ogiin mareexaanka mujada haddii aan soo istaago kubka waxaa lagu baxay lugaha waaweyn haye inan yaroo kub iyo dabale oo qurux badan baan ahaa haye wallahi oo bilaa firi ma aamsata dhimasho ha ma aamsata anytime inaad dhiman karti ha
ilaahay la hortagaya farmaajo laba dhil waxay ku dhuftay markii ka bacdi oo markaan daaro ka hadlay iyo wuxuu dhahay gabadha waa ay dhulbahante gurigay niman aad inay ku xoogay oo guriga ku geey weligaa ma arag haye way ku xoogeen meeqa nina ku xoogta marka asaga iyo nin oo xaafadda ila deganaayo oo reer kooshin ahaa ayaa mid kale oo isagana reer kooshin oo xaafadda ila deganaayeen maxamed cabdilaahi kool dhahaayo afar oo lagu yidhi aakhirkii nairobi buu ku wawaashay waxaad camal haye iyo mid kaloo hadda nool haye kan hadda maraykanka joogana ula shaqaqsada xanikubka waxaa ahaa gabar yaroo macna ani ma yeesi jirin ruuxaantii odayaal oo iska dabaqsan oo reer baadiye ah oo jaahiliin ah wax buu haye waayahay way soo laaban doontaa farmaajo may waa soo laabta farmaajo wuxuu bartay male markaasa faransiis la berraa luqadda faransiiska luqyada ay ku baran jireen haye marka ninkan yaa markii lagu xoogay yaa kugu horri wallahi weliga inaan soo galo daahir ma rabin laakiin ninka mar alla markaa xasuusto qalbiga qaci dhaha ka waran haye marka yaa kugu horreeyey kufsiga yaa kugu horreeyey maanta waa noolahay firi walaalkay daktarka hadaysa oo shaqeeya ingiriiska waa dhimaa laakiin in badan shirkareeya adaa shirkaaga dhigtay banaanka soo safar ma jacad iyo qanaane ingiriiska waa degan tahay ingiriiska deganay waa kaas inta ka shaqeeya NHS burjada ha london ma degan tahay mise Birmingham beeshkayga next baan ahay khudad baan qabaa anina milyan abtigay baa wasta fadhaa yani haye laakiin farmaajo inuu xoogay oo killer yahay oo wasakh yahayna marixaamta markaa dho inaad arka way cabsi qofka maskaxo oo masxalaabteeda marka waxay sheegtaa walaashiisa la dhalatay laftirkeeda mujad wuxuu nacbatay ogtahay adi waasha ma ku cayla daaro hay horta idil ninkan waxbay ku aragtay iska ma caay lahayn ninkan idil waxbay ku aragtay adi ma ku caynad walaasha maya ogta waqtiga kan la xoogay may horta isaga gabadha carays iyo saba saas uu kufsaday firi daaro guriga ku noolaa nolosha haysta maanta waa ogaadee kalkaali 2019 aan wataa aan wax shil uga baahanay male laakiin wixii ugu soo anoo yar markaa maqlo farmaajo madaxweyne noqday waa iska aamusay ka qalle waa daaroode waa lagu dhahay anaa dhahay ana niyadeeda iska dhadhicay mogtahay haye laakiin markaa artay wuxuu sameynaayo ila waa nid xoog jire ha ninka weligiis gaangiisoo ah gabadha carays isa saasay dhahaysay gabar kale waa arkay oo isoo wacday oo tiri daahirow farmaajo ay farxumeeyey weliba si xun u isticmaalay waxba igu jarja farmaajo suu eka number waan ku hayaa aata ah oo miskiin u eka hadda filimkuu jilaayo waay haye hooyadiisa macaan way nooshiisa moogid haye way maqashay habarta laftirkeeda raba inaan la hadlo hooyaday baa la hadashay adakaygu bay tiri markuu maqlay gabadha yariista la soo xoogay isaga geeyey madiina guriga la geenayno waxa waaya haddaa soo raadisid yaa rabbi xaggee ka raadine gabar safiya la dhahaayo islaam weyn eedo idaacadda ka shaqaynaysay walaasheed oo qalanka la yiraahdaa waxay ku nooshay Sweden nin baandaa gursaday waxaan imeekraana nin Jarmal oo galad Jarmal ku qabo ma dhimatay ma noosha lama soo mar ay ugu dambeysay haye marka gurigii la geeyay ka hadlaya guri loo geeyay marka adiga waxa ayaa kula socdo waxa kula socdo ma taqaanaa farmaajo kow labo ninka dhigi jiray maxamed cabdullaahi oo isla reer koshina oo deganaa xamar jadiid haye waxaa dhalay oday oo magac leh waa farlaawe miya maaqa ada xamar jadiid nin reer koshina magacaas leh waay marka kufsadeen ma waxbay toori waxbay ku jarjareen mise waxba kuma jarjareen jarjarida ha ma toori waxay ku isticmaaleen mise waxba kuma isticmaaleen abo fa farlaab xeelta sirinta la geeyay haye
marka yaa kufsiga yaa kugu horreeyey kufsiga farmaajo ma jirto allah subxaana wa tacaala qofku ilaah usoo diro ها لكن مايا كفتي يا كله الرمركة ما فرماجة كوه هرمر يا كوه هرمر دليل farmaajo kow gacanta ii qaaday هاي ninka guska la soo baxana farmaajo ah هاي أوري والله بالله وطلع دار حقيقة كل شيء سقدنا ويستمعالنا وعيتر مركا عادي وشيكينيسي أو ما كده حتى سقدنا ويستمعالا عيتر سقدنا مركا يكون يشيكينيسي سقدنا إلهي باقوسك كده ميبا هاي إلا وحاسة قبر يرو ولي قنقاري هادنا دارود بانشكت أووغ دارود سفاعيلو هاي سقدنا إيقو راحة صدحت إيقو كوي كلوا إيقا عررين هاي marka hadda maadaama European aad tama maxkamad geysid oo dacweysid hadda leenka ku dacweeya wallahi yara qabsanaysaa inuu kugu sameeyay mataqaan rayb uu ku reebgareeyay adoo yar oo 40 jira samay wallahi oo billah oo talaba never ever abno farqad farmaanka oo ilmayra horta fiirina deer waan guursaday waxa imaaday Netherland anigoo ah 18 ma fahanti waxaan tagana magaalada Hervein still wixii ba xasuusanaya samawid haye nin ii harayna ma nin Allah ninkii guursada alxamdulillah maanta waxaa haysta 6 caruura يعني وحي أرد وحن وحسك كودا عاية والرجل ده بس كدفاعيسا هاي نيجي كدفاع الجنود هاي إنه نين ده يفيدو إيجارتي إنا عقدة قادو إيجارتي هاي حنون وحن سموك ها وسكها هاي والله حنون بقى لكن أصلا حافظني سوى تقين والحنون بيقول ده الرجل ما لكن حافظني سوى تقين حتى أنا إيجت مدة ها نيك مدة بيحدى وهو نين أودر بانتا هاي وإرجع عقدة ما رك مارك ويقول أبوري هذه هو اسم حد كتير هي بريحان كريت كوتشيكا هذه هو اسم حد كتير فرمادي هو اسم حد كتير وحبا وادر بانتا كور وحبا اسمني أيضا هو اسم وعيس عبد الله هذه يا كتار البانته جامع سياد هذه جي أساتا جامع سيادتا أنا جيت كي مصيبة هذا المادرنا ها شيخ حتى الشيخة أنا عرفت الشيخ ما نقول لك والله وبالله وطالله هذا عاول نتظاهره إلهي وصوات أنا إنسان قبرك أسجوكنا نيك وجهك مسكين كل مرة ولك هذا حتى هذا كذاب ده وسخ نيو قبل بدنا ساعة أو كفصدي أو فرحمية أو إلى السوق حريري أو إيش شيء ما فهمتي أنا ويقعنا أنا مرة حاكي يسوق قبو كون ما هذا كل شيء جاي يسوق قبو كوا رنت الشيء جاي حتى على حاجة بحنا ألا ما جن كو نيك اللي هذا محمد عبد الله اللبو ريش محمود شرمي هاين لا هو دارك على أمريكا صوت أنا الحاجة وقاش حتى يسموها رنت الشيء جاي كتاب كنا قعدت مرة يعني مرة بروح بيني كهلا حقيقة هني ورهات هبر بانوقدي مركز كنيرو كلا حرنو بيبي أو واتقانا تيش واتقانا مركز صوب حيس مركز فلاور كي يبو عرابي وص مركز أسقو حجري أنا أفرد بجر بينو أسقو حجري إلا 29 عمر وحكاوي هذه التوسع لضبط توسع إلا أيو باي توسع نجمع وينا 8 سنة فرماج عبد وكونتر يو تطلع عمل واحد 8 سنة كاوين هذيك يا أختي أنا كنا صوتني سجاجير بارها marka calay xal waa kaasa shacabka waa la wadaagaya shacabkan la wadaagaya arintaas meel weyn bay gaaraysaa adigana xaq waxa uu leeyahay هذا الرجال سوري أنا كوسو رادنا محمد عبد الله iyo reer maxamuud shirmay ahaayeen qolada ay sheegaysa iyo maxamuud cali shire wuu nool yahay maxamuud cali shire iyo allamagan iyo kullu raadinaya kulli hadii akrana waa qalcinoona ana la hadlayo isu wada gudbi leeska dadku wada ma inkirayaan dhacdooyinka inta ikraaceen aniga aabay macaan wuxuu yiri nimankii buu aaday xaal hala bixiyo aabin xaal فبرك
dadkii waa way dhoofeen maxaa loo qariyay laakiin kufsigaaga maxaa loo qariyay ana tafiri waxaa loo qabanaa daaroodnimo no haye hadda daaroodka aawe ana aabbahay ba Soomaaliya taqaana sibcadda waa la xiraamo aras is aabbahay wuxuu soo diray markii la soo qaano oo ah 17 jir oo Netherland ii soo diray macnaa hal la qariyo aamuso waa ha okay markii lagu kufsaday xagee lagu geeyay oo lagu kufsaday جزيرة حيث جزيرة حقين لقى ودنا وحالي قوضي بين مكوشيغا عروبة لقى قوضي عروبة كاوتين حمر وين كوجيين إلا ما غسا أي كويستي قياستي حمر وين معك أنا كنت أنت باور كنت البعنتها للسعودي هاي ولقى قدس المفعد هذا أولى أحمد هذا هاي مركز والو وط قرات كده تقول كيسة ما يعبوا لي هاي وياي مركز والو وط ما غسا أي كويستين أي جسير كويستين معاه ساعة لقى بقى أفتر ساعات ما حسابت ترى كل بقى صدقني إيش بودي فرمانجو وحيش بودي محمد عبد الله أيجا هبل كاسم كوشي جايو أوجه دارس والله كوسوك عينا ماله هشاكه كبعد ماشي أنا قبلي صاحب ده اللي عليه هاي دورت بجرب بقى نازل حوق ماشي أنا أقول لك حسموي ها باور ماله سوماليا ايوه مركو مقع صدح محل دها مقعيغا waxaa la yiraahdaa Xaliima Abukar Diri Xaliima Abukar Diri waya waxa ku dhalatay howladaag mi adig maya anigu waxaan ku dhashay Sacuudiga Geezaan kadib laakiin hay howladaag ahayd anoo saddex jir ay maaday Muqdisho haya xagee marka howladaag Muuse Galaal asagana howladaag degan laba dhagax miya Muuse Galaal ma taqaan miya waaqana Muuse Galaal asaga howladaag deganay howladaag baashi dadku ku soo galay warshadii dabarka oo la jiray asaga laba dhagax u degan laba dhagax yaa degan laba dhagax farmaajo انت درس الحين وادينا عن حمر جديد ها ماشي كلامي بس بجري ما كانت تصبح حديد ها سوق حمر جديد حاجه وجود بحافظ اللي واي ها تليفونك هويس دم صوصي كور هويس او دعوت marka hore الله ما يتقانا اي سو ديب التصوير بنت كل شيء فرماشي وحلا انا ليش كميه ام ندرنا فراويه اقاكوما والله بلا محكمه النظر وكلين كرا هولن تسمع واقع صحوه إلهي بقول لك محكمة أدوك ومرسين كرا ولا عشان عدالة أو يقولوا كل شيء ما فهم بس هو مركا هذا هذا الله يقبسطه أنا هذا الله يقبسطه حنو جايين أريد ميل وين يفول يسو وحكس أنا قوان هيستند الله دائما هذا ما أعرفين كساد بريتشان هاي بس مركا بدل لك ستيل نظر لا فراو هاي إخاف خريكني والله بلا محكمة الصارة ده قاري نقول بس أوكي مركا بس مرنا قابنا يوم أوجه ما كنا شو ودنا لا ما ده يا مي فرماجو محكمة أدوك هنا مركا استوى حسطا كيف سياس والله أدوك أكبر حسطي فرماجو نو هذا اللي تري عيدا بوكسن وياه ما يوقع لكن هذا مركز تكفسي جوا هذا مسكحين كفسي جوا دائما مسكحين يكون جاي السما واحد استمروا والله ما بتيجي بين مكشاج وضد ورنين عاد فيري نين الله نيكا قرصته أنا كده حاجة مثل مثل ويقول لي كور أنا أضع المية هذه أقول لكم كذا كور مركزها مدحوين الصومالي كهذا عندنا والد كذا يكون عامش كور كاسة مركز مدحوين الصومالي كه هو يدرس عباه الحاجة يسألوا نحرس يشتامل هي هلا عامش هي عامش بس بس هو مركز أنا لكن فرحتني اللي قلت له سمع فرحت ما يست مركز أنت صفت ورئيس أنت ورئيس أكون جوجنا ورئيس أنت تكون جوجنا كهذا ضوء مركز أنت مكوها كنا ورئيس ما عادي ورئيس وحال نعض حنون بدنا كهلا يساي لبس كم واجبينه أنت سأكون أكيد وقتصني سانك قدوم قتصني موقعان سو أنا ما وروح واحد صفي عنا